berberyaha ka mid ah ayaa waxaa jiri jiray boqortooyo aad iyo aad u fog. Boqortooyadaas waxaa maamuli jiray nin wiil da'yar ah. Ninka boqorkan ayaa waxaa madax xanuujiyay maamulista boqortooyada, wuxuuna u baahday qof la taliya u noqda. Mid ka mid ah shaqaalayaashiisa ayaa wuxuu ku yidhi waxaa jooga boqortooyada wiil kabatolo ah, wiilkaasoo ah wiil caqli badan. Marka uu boqorkii intaas maqlay ayuu habeenkii waxa uu iska soo dhigay nin safar ah, isaga oo u soo gargaraacaya wiilkii kabatolaha ahaa ayuu albaabka ku garaacay. Markuu garaacay, wiilkii ayaa ka soo baxay albaabka. Wuxuu yidhi maxaad ahayd? Markaas ayuu wuxuu ku yidhi nin safar ah ayaan ahaa, meel aan seexday si caawa. Markaas wiilkii ayaa wuxuu ku yidhi soo gal. Wayna wada fariisteen. Markay wada fariisteen, boqorkii ayaa wuxuu fiiriyay derbiga wiilka, wuxuuna ekaaday guri jabsan. Markaas ayuu wiilkii kabatolaha ahaa ayuu wuxuu ku dhahayaa iga raali noqo wiil yahow, wiil shaqaysa soo ma tihid, waa maxay gurigan jabsan? Markaas wiilka ayaa oranaya aniga waan shaqaystaa, laakiin lacagta aan shaqeeyo waxaan siiyaa dadka masaakiinta ah, anigu gurigeyga ma dayactiro. Markaas ayaa odayga ayaa wuxuu yidhi boqortooyada haysta ayaa waxa uu rabaa wiil la taliya u noqda booskaas haddaan kuu soo raadiyo ka waran. Markaas wiilka ayaa waxa uu dhahayaa igada fadlan, anigu ma rabo. Boqoriintu waxay shaqaalaysiiyaan dadka lacagaha leh, ma shaqaalaysiiyaan dadka faqiirka ah. Boqorka ayaa la yaabaya arrinkaas. Subaxii markii la gaaray, boqorka ayaa wuxuu ku soo laabanayaa qasrigiisii. Markaas shaqaalayaashiisa ayaa wuxuu u amrayaa in ay digir u qaybiyaan dadka oo dhan, markaas ay beertaan reer walba. Markuu shaqaalayaashiisa amray oo la siiyay dadkoo dhan, markaas waxaa beertay dadka oo dhan oo digirtii la siiyay. Boqorkii ayaa wuxuu ku soo laabanayaa wiilkii magaaladiisii, wuxuuna arkayaa dadkoo dhan oo beertay, wiilkii aana beeran. Guriga wiilka ayuu soo gargaraacayaa isagoo iska dhigaya ninkii habeenkii. Markaas wuxuu dhahayaa digirtii maada beeran miyaa? Markaas wiilka ayaa wuxuu ku dhahayaa soo gal iridka, wuxuuna geynayaa kursigii. Marka uu kursigii geeyo ayuu wuxuu usoo bixinayaa digirtii isaga oo kariyay. Markaas boqorka ayaa wuxuu ku dhahayaa wiilka, boqorka soo muusan dhihin hala beerto digirta. Markaas wiilka ayaa wuxuu dhahayaa hala beerto wuu yiri, laakiin intaan khasaari lahaa oo aan sugi lahaa waqti fog, waxaan ka doorbiday inaan karsado. Boqorka ayaa wuxuu dhahayaa wiilkani waa wiil wanaagsan, laakiin xujo kale saddexaad ayuu rabaa inuu u diyaariyo. Markaas nin ka mid ah boqorka shaqaalayaashiisa ayaa wuxuu u dirayaa dhanka iyo wiilka, isagoo u geynayaa sanduuq dahab ah. Wuxuuna ku dhahayaa boqorka ayaa wuxuu soo yiri iiga samee kabo, 3 biri ayaad haysataa. Wiilkii ayaa soo aadaya dhankaas iyo dabka, isagoo oo aad iyo aad u walwalsan, ileen biri ayaa waxaa laga rabaa in uu kabo dahab ah keeno. Wiilkii ayaa wuxuu ku tuurayaa dheemankii dabka, isagoo oo raba inuu dhalaalo. Markuu dhalaalay dheemankii ayuu wuxuu la soo aaday sanduuqa, isagoo oo ku guraya dheemankii oo dhalaalay. Markaas ayuu wuxuu ka soo bixiyay kabo aad iyo aad u qurux badan. Markaas ayuu wuxuu u keenay boqorkii, dadkii oo dhan oo yaaban oo isleh wuxuu soo sameeyay bal arka. Wuxuu keenay kabo aad iyo aad u qurux badan. Dadkii ayaa wada yaabay hal mar ah. Gabadhii boqorkana way aad ayay u faraxday. Markaas gabadhii hadday faraxday ayay waxay tuurtay kuwii hore, waxayna gashatay kabihii cusbaa iyada oo aad u faraxsan. Boqorkii ayaa wuxuu ku farxay gabadhiisa sidai u faraxsan tahay, wuxuuna u mahad celiyay wiilka. Wiilkii ayuu wuxuu ku yiri wiil yahow, waxaad tahay wiil aad iyo aad u fiican, waxaanan kaa dhigay
ilaaliyahayga khaaska ah. Hadda kabacdi waxaad ilaalinaysaa qasrigayga. Wiilkii ayaa wuxuu soo gashtay dharkii qasriga isaga oo ilaalinaya boqorka. Wiilkii ayaa wuxuu ku yiri wiil yahow waxaad tahay wiil aad iyo aad u fiican. Markaas ayuu waxa loo dhiibay seeftii ilaalinta boqortooyada. Markaasi wiilka aad iyo aad asoo u faraxsan wuxuuna bilaabay shaqadiisii isaga oo aad iyo aad u faraxsan. Boqorkana wuxuu u faraxsanaa sidiisa si ka daran. Asxaabay maanta sheekadeenii intaas ayay nooga eg tahay.